waxa laydinku eedeeyaa adiga iyo xukuumaddaadaba ama dawladduba inaad doonaysaan in wax kasta aad xoog ku maquunisaan halkii aad raadi lahaydeen dariiqyo kale hadday ahaan lahayd dhinaca wada hadallada haddii aan dhinaca dib u heshiisinta haddii ahaan lahayd dhinaca isku jiijiidka oo Soomaali muddo dagaalamaysay u baahan in si jilicsan ama maslaxad guud la raadiyo marka qaar xooga maxal kaliya u aragtay waxaan rabaa in aan ka mahad celiyo in aad weydiin kartid su'aal walba oo qabtay waana muhiim dadka Soomaalida inay maqlaan waxaan rabaa inaan kala duuno maxaa xoog ah maxaan xoog ahayn annagu cidna xoog kuma maqoonina laakiin dhaqanka dawladnimo ayaa wuxuu yahay haddaad rabtay inaad dhaqaalaha dib u habeyn ku samayso waa in musuqmaasuqa la dagaalamaa shacabka Soomaaliyeed way idin soo banaan bixin adiga iyo madaxweynaha Soomaaliya 2 sano ka hor iyagoo aad ula dhacsan hogaamintiina iyagoo oo idin ka filaya isbedelo mug leh mukula tahay in filashadii shacabka ay hoos u dhacday maya waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed intooda badan ama waxaan dhihi karaa meel walba ay joogaan in indhahooda ay macallin u yihiin waxaan ballan qaadnay inaan dhaqaalaha dib u habeyn ku samayn doono adduunyada qartay in Soomaaliya ay meeshii ugu wanaagsaneed tahay rajana ay leedahay waxaan ballan qaadnay inaan ciidamada dib u habeyn ku samaynayno waa adiga arkay waxaan ballan qaadnay aniga madaxweynuhu inaan wada shaqayn doono aan dadka hore ka duwanaanayno 2 sano soo wada shaqaynaynay waad aragtaan arrintii warbaahinta madaxa bannaan cabasho ayaa jirta oo ah dawladdu inaanay fursad siinaynin mararka qaar ama xafiisyadii dawladda inta badan warbaahintii madaxa bannaan aanay u helin fursado ay akhbaaraadka iyo wax bulshada ay u baahan yihiin ay uga soo qaadaan doorkiina warbaahinta madaxa bannaan muxuu yahay horta waxaan rabaa inaan ogaado ama adiga ka ogaado marka Soomaaliya barbar dhigto dalalka dunida ama wadamada geeska Afrika waa maxay doorka warbaahintu ay ku leedahay dalkan warbaahin furan xor ah waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay tahay wadamada ugu horeeya doorka idinku aad ku leedihiin dib u dhiska dalka maxay tahay waxaan aaminsanahay idinka laftiina inaad dib isugu noqotaan inaan u furannahay waxa tusaale ah inaad hor fadhidid aad i weydiisay su'aal walba aad doonaysid haddii ay ku dhiman tahay aan diyaar u ahay inaad si weydiisid